السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ولا له جواد السلامين ميلو بقدم كجكتام ولا شيء نجم MBR هالكذا قد عمل إنسان و MBR قروح دمر إن عاوة وحان وتها قبضني لو يقاني قارد لاي أنا مش علينا قارد لاي ده إن وحان ده هي كوين وحان لاي هاي قبر سترونج بات هاي وحان لاي هاي ما شاء الله تبارك الله لاندير بنان كده بات هاي وحان روا مركب قبضان قصة هذه كو waxaan dhihi karaa umaleynaa gabadhaasi maalintan subscribe ku saaray waxaan umaleynaa qisada koo maalinta soo galisay waxa umaleynaa inayba hal sac miya ay ugu jirtaan umaleynaa koo part 1 markay soo galinaysay ee qisadeeda aan dhageysanayay qisadeedii waan dhageystay A to Z anigana waxaan ahay dadka jecel inay wax hubsadaan oo markay wax dhageysanayaan jecel qofka hadalkiisa inuu wax kala dhaxbaxo baan jeclahay gabadhan walaasheen am caaba inaan ka hadlo waxa igu qasbay fiidiyoyo iyo ayada oo commentiyo soo qaadanayso waxaan jeclaystay marka gabadhan qisadeedii ani maxaa iiga soo baxay maxay ayda ku qaldan tahay muxuu qalbi dhagax ku qaldan yahay gabadhan walaasheedii hor soo dhaw walaash macaan madaxa ay saaran tahay sheekadaadan ma aragtay inaan marka hore dhaxgalo ma jecleen laakiin caaba waxaan jeclaystay fiidiyowgaagi kale oo ka soo hadashay oo qalbi dhagax aad iscafiseen intaan YouTube tagan soo daawada A to Z waxaan jeclaystay marka inaan qisadaada wax yar aan falanqeeyo marka gabadhan walaasheen ah iyo qalbi dhagax baa waxaan rabaa inaan falanqeeyo bal idinkana saad u aragtaan ila soo wadaaga oo ila soo share gareeya ayada maanta kuwa badan oo comment u soo qaraya jirto iskaga dhigay waxaan la arkin oo la maqlin laakiin iyada maanta waxay soo martay wax ka daran ay ku dhex jiraan oo ma aragtay dhibaatada adduunka ee lugaha kula jiraan oo haddana iska dhigayaan wax dad qatar oo ma aragtay waxaan la arkin oo la maqlin haddaan gabadhan walaashay arinteeda falanqeynteeda u dhex kalo wiilka qalbi dhagax la dhaho iyo ayada markaan si fiican u dhageystay oo maalmahan dhageysana intaan shaax soo karsado oo ilmaha markaa kala seexsado oo aan maartay meeshaas inta fadhiisto cisheedii markaa tukada kadib baan telefoonka inta soo qataan dhageysan jiray maskaxdeeda juusta hal mar isma dhaafineen video waan dhageysanaa si aan ogala soo baxo walaasheen maartay hadaladeeda walaasheen horta waxbay ku qaldaneen qalbi dhagaxna wuu qaldanaa marna walaasheen arintu way ka hoos baxday game ma ciyaarin waxaa loo baahnaa game qatar inay ciyaarto gameka caawa meesha ka sheega gabadhan walaashan horta qalbi dhagax marka u hore ay jeclaatay oo ay tagtay oo wiilka uurkiisa soo yeelanaysa wuu qayaanay oo been buu u sheegay oo wuxuu yiri waa ku jeclahay guri maartay anaa bixinay waxyaabo noocaasi wuu qayaanay taasi been buu u sheegay uur bay soo yeelatay wadankii bay ku soo noqotay wadankii markay imaatay marka wadankeeda imaatay dagaalkii iyo buuqii markuu bilowday qalbi dhagax waxba muu qarsanine way ogaatay inuu naag qabay informationka dhan bay ogaatay markii dambe qalbi dhagax wuxuu la soo istaagay walaal macanto kuma jecli kuma rabi been kuma sheegi kari faraha iga qaad qofku markuu saas arinta kuugu cadeeyo kumuu dilin kumuuna qayaaneen laakiin walaasheen jacayl baa haayo ilaahay kuma darnaatay dhabaaq yar oo gabdhaha Soomaaliyeed ka dhex dhabaaqana wuu ka dhex qaylinayo wuxuu lahaa ilmo kala haba ma hadaan kala guursanay waxaasna way cabsidaasna way ku jirtay saaxiibada waati inta ka boodtay diyaarad raacad ma aragtay ninka rabtay inay soo aragto ma aragtay wiilkii airportka intii qisadii ku dhacday airportkii kala soo dhaxadashay kadib ma aragtay la sasabay wiilkii wuu naxay because qof walba naxay hooyo ilmo yar ka soo tagtay hadana airport dhaxwaabanayso wuu iska qanciyo wuxuu yiri haday saas tahay waan isku noqoneena kadib sheekada waa la isku noqday kadib waatii ilmihii wadanka geysay kadib waatii ilmihii hadana la soo carartay isdaba jijiid ka badan saaxiibada waxa la yiri waa hadal badantay waa problem badanta ima soo wici kartid saaxiibada iyadoo og ninkii ku dhahay kuma rabi inta lagu yiraahday bay hadana waxay raadinaysay in waqti la siiyo time la siiyo caawa meeshan waxaan rabaa gabadhan walaasheen qisadeeda indhaha ku cadeynaysa idinka laakiin waa wax laga barto waana gabdhaha Soomaali waxay sameeyaan qof ku yiri kuma rabi waa ku furaya kugu goodinaya ba hadana waxaad rabtaa in waqti ku siiyo time ku siiyo kula hadlo waa arintii ugu yaabka badnay saaxiibada arintii waa laga soo tagay ilmeedii soo qaadatay waa tii wiilka dib dambe u celisay waa tii qalbi dhagax keentay qalbi dhagax markay wadanka keentay qaarad laay maxay ku qaldaneen ana waxa iskaxdeeda yarta ah waxa meeshaas aan ka dhaxelay baan rabaa inaan idin sheego qaarad laay wiilkii way keentay war qaarad laay lama dhahay gabadha magaceeda maxaan dhahaa
walaashan wiilkii way keentay wiilkii markay walaashan keentay maxaa loo baahnaa walaashan wiilkii sharci maxay u bartay gaarigii bay baraysay lacagaa lagu lahaa lacagihii waa laga bixiyay bay tiri waxyaabo badan bay isku aadisanaysay walaashan intay shaqada ku maqan tahay wiilkan ilmaha wuu ka xajinayo gurigan wuu u joogay walaashan waxaa kale ogeyd inuu qalbi dhagax sararta iyada ay seexato qalbi dhagaxna uu dhulka seexdo walaashan maquusato waaye waxay raadinaysaa in loo dhaqmo si dad isjecel waxaa ka hoos baxday inay maskaxdeeda u shaqayso qofkani inay tahay qof ayadaba ay xoog iyo jijiib iyo silac iyo saxariir ay xataa meeshan ku keentay wandhay xataa qalbi dhagax aysan afkiisa ka maqlin walaalo ii dacwow iyo walaalo inaa wadanka tagaarba iyo walaalo waxaasaan aysan ka maqlin ay ayadu ila adeedgeeda ay ku keensanayso saaxiibadaa marka maxay rabtay saaxiibadaa caradeedii kuleelkeedii baa wax walba dhaafiyey ninku jecel oo lugaha kuu dhaqaayo oo lugaha kuu duugayo oo ku jecel oo maaragtay sujuuda kaa dhunkanayo ee ilmahaagii adiga saa idin kolkoolinayaad haddaad probleenkaada iyo jaqdaada bato qalbigiisa isbedelaya what do you think about qof aanan kuu baahnayn buu ku rabin oodba dhul iyo sariir aad kala jiftaan aqliga yarka inuu shaqeeyaa la rabay qaar allahi qaydadeeday bilowday ilmaha ma iga reebtay sawqti ma siisid baba fadhi ku diraa fadhida kan waxaa la rabay inay maskaxdeeda aayirku isdejiso qofkan intay shaqada ku maqanta ilmaha ma haayo okay galabadii ha baxo let him go because maanta inuu guri ku dhex fadhiso ma aan you know qofka inuusan ku jeclaan oo adigu shalay life lagu yiri walaalo kuma rabo kuma jecli waadkaasaaba meela dhigtaba aysan lahayn inuu maskaxdaada ku xirnaaday ahay maada aqligaaga yaa rabay inaad samayso gambar yar inaad ku fadhiisato oo sidaahdana yaa heedhe ninka isagoo shalay ku yiraahday kuma rabo ayaad Norwayna maanta keesatay nahada ila soo hadashay waan ku furaaya ku dhahaayay ninka nin aad fadhi ku dirraha aadan iyo waxyaabo noocaas aad kala xisaabtami karto ma aha ilaa qofku markuu ku baahan yahay waxyaabaad kala hadli kartaa ninka markuu naagta jecel yahay sanka ay ka dhax gashay xitaa waxba uma arko laakiin markuu naagta naco waa qayl badanta waa buuq badanta waa control badanta waa lagu yaqaanaa فهمت محل ربنا جنبر يار وفريسات مركز شرعية يجاري ويحور أن أدبرت شقينا أسبوع وحس جنبر يار أهلك وفريسات وضر هذا ولا علو سانو شقينا وين داري لوهي باي برا أديكم كوكين ورجع نوفرنا أي حاجة ربك أكتبت هذا صاحب نو شقي الشقة كتورت أديكنا المهاج يجورجاج إعلان كاج كهال أرج إن سأكل تورت هذا الربي قلب دغح نن كنترول الكرتي نن ku qaqabsan kartay fadhi ku dir maxaa wada nin dariska fadhi ku dir ka baray nin baa sii wado soo wado nin control kartay qalbi dhagax ma ahaynba because ma looruba ku yir walaalo kuma rabo dalqadaha lagu goodinay laakiin waxa la rabay inaad game aqli maskaxiin ina u ciyaartid wada la ilaahay ninkan miyaha na qiimaha kor u qaad self esteem kaaga hay ha ku noqdo gambarkaaga yar soo fadhiso ninka ma aragtay ha ku shaqeey adigana guriga u fadhiso maada sameeynin maxaa sameysay gabadheeniye maxaa sameysay waxaad sameysay qayliya bilawday ilmaha ma iga reebtid ilmaha ma iyeesh ilmaha ma saanay sameysay fadhi ku dirka maxaa la fadhidaa meelaha maxaa la taagan tahay qab jiima raba inay aado kana raba inay aado kuusa raba inay aado ilmaha iga qabanin maanta inta shaqo ku fadhid shaqo ku maqnayd guriga ku dhex fadhiyo ilmo ku haayay oo waxna maartay shaqana aadin banaana aadin oo Afrika ka imaado wareeg iyo socod yaqaan ba waxaad rabtaa hadana inuu guriga ku sii dhex fadhiyo hadana ilmihi ka reebo adigana maanta maartay waxaad rabtid asoo waaw qofka markay haano la caadi in ka dhaxayso qofka maartay labada qof yes ha لكن ما هي قلب دغح نساس anyway all in all taasoo horta ka hoos baxday maalinta aad dhahaysay hooyadiisa wacay tan kaloon kaaga waxay ahayd inaad very speed aad tahay walaasheedii hooyadiis maxaa ka doontay ninka haduu ku rabin hooyana kugu karin aabana kugu karin eedana kugu karin ehelana kugu karin aqrabana kugu karin ninka haduu ku rabana laga ma reebi karo hooyana ka reebi karin eedana ka reebi karin qabiilana ka reebi karin aqrabana ka reebi karin adiga umbu indhahaaga saa ugu fiirinaya maanta nin marka hooyana ma reebi karto aabana ma reebi karto inaad hooyadiis wacdood aad dhahdo gurigeyga iga dhax bax abaareena ka bax ada guriga laga dhisan waxa inaad dhahdo qalad ay kugu ahayd waan la yaabay aad u fududaatay fudeedkaagana uu badan yahay marka caaba arinta go'aanka aad qaadatay oo ah inaad ilmahan iyo aabihiis ay maaragtay isla xiriiriso oo ilmaha isla taas oo qoyska gabadha iyo wiilka iyo aabihii isla xiriirinayso ma sha Allah tabarakallah oo ku heshiiseen aad iyo aad aan kugu taageersanahay kugu faraxsanahay qof in la dhibaateeyay dib la marsiyay hadana dad cafiyo waa qof strong ah
qofkaana wax cafin inaad qofkii cafiso adiga caafimaad ku tahay inaad qofkii cafisood qalbigaaga nadiif ka dhigto asaga waxba ooguma taraysid adiga caafimaad ahaan ay ku fiican tahay maasha Allah tabarakallah waa kugu hambalyeynaya inaad aabaha iyo ilmaha aad isku xir cunugiisa aad isku xirto waa arin aad iyo aad u fiican maasha Allah tabarakallah anigu waa kugu taageersanahay waana kugu hambalyeynaya de aaba wanaagsan oo cunugiisa jecel haduusan ahayna cunugaaga sanka kamaada geliseen laakiin hal dardaarna kugu sii daraa inaad noqotid hooyo strong ah inaan hooyo laba kaliya haysaan 5 iyo 6 baa airportka arka kaligood ilma jiidaayo airportkaad aragteen dhibka iyo silca aragteen oo kii uu dhalana uu caloosha taagayo meelaha taagan yahay marka gabdha ilma badan koriyo kaligood marka walaasheediyay aad iyo aad maartay isku daji xoogoo yarna waxa ka muuqda dabiicadaada ma control kartid isku day inaad control shid waxa intaada falin ka fiirso carada faraha badan qofku waxa fiican inuu meel fadhiisto isla hadlo miisaan isa saaro markay xanaaqdid qof kasta iska wacan qof kasta iska boodin nolosha kale cusub ay sameeysan doontiin waxaan ku leeyahay ilaahayga waaxidkana kaaga dhigo mid qurux badan oo subhanallah samirka amaanta samirtay ee cafiska aad wiilka cafisay dartiis inuu ilaahayga waaxidkuna kugu siiyo ciiltire bahal wiilo ciiltire la dhaynay libaxsan ka taabta ah oo saa ku xambaaro saa ku kalkooliyo quruxleeda aragtaa tahay ma sha Allah tabarakallah marka qariya caafimaad idin rajeynaya naaga gabadha ku maxsan waxaan leeyahay na comment ka diga idinka ka dararo dhibaato iyo rafaad luuqyada qarinaysiin iyada waxay wayba sheegatay ma sha Allah tabarakallah hadaad jeceshahayna de waa caadi waa ninkaagi ma fahanti jacaylkana ciyaar ma ah marka inaad qofaad jeclayd oo nolosha aad isku weyseen inaad wanaag iyo jacaylka aad u qabtay inaad fiirisid oo ku cafisidna waa naagnimo iyo kartinimo taasaa la isdheeriya marka waxa idin leeyahay qariya caafimaad pizza